Soomaaliya vs Eritrea xulka qaranka dalkeena Soomaaliya ayaa galabta ciyaari doona kulanka ugu dambeeya heerka guruubada tartanka Sekafa Senior Challenge Cup oo sanadkan lagu martigelinayo dalka Uganda. Qarankeena Soomaaliya oo leh dhibco gaaraya 4 dhibcood ayaa wajihi doona xulka Eritrea kuwaas oo leh 6 dhibcood iyadoo wiilasha qarankeena Ocean Stars ay ku waajibtahay inay ka adkaadaan wiilasha qaranka Eritrea. Sidee ayay ku soo bixi kartaa xulka qarankeena Soomaaliya waxaa qasab ku ah inay guul ka gaarto Eritrea si ay ugu soo baxdo wareegga xiga ee tartanka sidoo kalena Djibouti ay kala kulanto guuldarro xulka Uganda. Haddii ay badiyaan wiilasha Ocean Stars waa macquul in ay isaga soo haraan tartanka waa haddii Djibouti ay Uganda uga badiso wax ka badan 2 gool. Haddii qarankeena uu ku adkaado 3 gool laakiin Djibouti ay ku badiso 3 gool wiilasha Ocean Stars ayaa guud ahaan isaga soo hari doona tartanka bariga iyo bartamaha Afrika Sekafa Senior Challenge Cup. Xaqiiqada kulanka xulalka Soomaaliya iyo Eritrea ayaa hore isku soo arkay taariikhda 2 kulan oo kaliya mid ka mid ah waxa adkaatay Eritrea halka midka kale uu ku soo ilaaday barbaro kuna darso dhammaan kulamadaasi waxa la ciyaaray bisha December. Galabta ay arki doonaan labada xul kulankooda saddexaad taariikhda. Dhaliyaha goolkii guusha kulankii ugu dambeeyay ee xulka qaranka Soomaaliya Umar Cabdullaahi Maxamed ayaa hore guul ugu soo dhaliyay xulka Zimbabwe kulankii kama dambaysta tartanka Isreebka Koobka Adduunka ee 2022 hase yeeshee tartanka ay isaga soo hareen wiilasha Ocean Stars isagoo ka fixiyay shacbi badan oo Soomaaliyeed. Galabta isha ayaa lagu hayn doonaa Umar waxyaabaha uu kulanka ku soo kordhin doono iyadoo xidigan uu kasbaday qalbiyo badan oo taageerayaasha Soomaaliya ah. Kulanka Soomaaliya Eritrea garoonka Star Times Stadium saacada xilliga geeska Afrika 7 saac iyo bar xilliga geeska Afrika. Su'aal gaar ah oo dhaqan Washington.